عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبة قيمها بدل ميل كاستا joogtaan kulanti wacan wanaagsan muuqaalka maanta waxaan ku baran doonaa haddii ay boono ogolaado si 10kaaga aad u sameyn lahayd indent taxati. waxaan ka wadaa indent taxati waxaan ka wadaa qoraalkaaga inaad sakiso oo dhinacana u sakiso ama dhinacana u sakiso. example ayaan ku fahmi doonaa wakaas qaabka waxa loo yaqaanaa indent taxati aan qoraalkaaga inaad sakiso indent taxati. waxaan filayaa waad fahantay sakin Soomaali ahaan indent English ahaan. haddii aad doonayso qoraalka inaad sakiso kor ama hoos aad u sakiso waxaad tagaysaa qaybtan paragraph-ka halkan ayaad imaanaysaa. haddii aad doonayso inaad u sakiso dhinacaas iyo midigtaada ama right inaad u sakiso halkan ayaad tagaysaa halka loo yaqaano increase indent ayaa ku dhufanaysaa. waa socda inta rabtid inaad sakiso ilaa intee rabtid inaad sakiso ilaa waad maynaysaa miya. haddii aad doonayso dhinacaas iyo left inaad u doorato inaad u waxayso isna kaan ayaad dooranaysaa inta ayaad u kaxaynaysaa ilaa ka ugu dambeeya. labadaas waa kala fahantaa marinaya. haddaa inta u sakineysana waa taas, haddaa inta u sakineysana waa taas. haddaa inta u sakinay control M inaad taabto hadduu kaa diidana inta ayaad taabanaysaa. qaabka waa fahantay kor iyo hoosna waa kan. haddii aan doonay sakiyo waa socda halkan soo fiiri waa kor iyo hoos fiiri. haddii aad ku dhufto waa kor iyo hoos midkii aad doonto ayaad halkaa ka xuranaysaa. indent qaabkaas ayaa lagu sameeyaa qoraalkaaga. haddii halkan ay shaqeyn waayo ama mid kale aan rabo waxaan tagayaa page layout-ka ayaan tagayaa halkan indent ayaan ka xuranayaa. halkan left haddaan rabo inuu qaabka uu kaxeeyo inta ayaan ku dhufanaya fiiri. markaan ku dhufto soo kaxeeyo fiiri right. haddii aan soo ceshana meeshii ku soo celi. haddaan ka right-ka rabo inta ayaan taabanayaa si sorta aan ku soo cesho. marka hore soo uu ahaa inta ayuu joogay marka hore. haddana right-ka aan fiirino soo jeedi soo noqonayo soo qoraalka isku gurayo. qaabka waa qaabka lagu sameeyo indent 10kaaga. adoo home tab-ka toogana halkan ayaa ka wadaysaa page layout-kana waa ka wadi kartaa. waxaan filayaa saaxiibka qiimaha badan waad fahantay qaabka 10kaaga indent lagu sameeyo. kulanti dambe oo xiiso leh.